ugu yaraan 163 Falastiiniyiin ah iyo 6 sarkaal oo booliiska Israa'iil ah ayaa lagu dhaawacay isku dhacyo ka dhacay magaalada Qudus bishan 10keeda sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiiniyiinta iyo booliiska Israa'iil. Intooda badan waxay ku dhaawacmeen masjidka Al-Aqsa halkaas oo booliiska Israa'iil ay ku ridayeen rasaas cinjir ah iyo bam gacmeedo iyadoo Falastiiniyiintuna ay tuurayeen dhagxaan iyo dhalooyin. Masjidka Al-Aqsa oo ka mid ah goobaha barakeysan ee muslimiinta waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay masaajidda kale ee dib loo furayo sida ay ku warantay shabakadda Al Jazeera. Haddaba halkan waxaa idinkugu soo gudbinayaa 4 qodob oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay masjidkan Al-Aqsa iyo guud ahaan magaalada Qudus. Ku soo dhawaada mawduucayna maanta. waxaa sii kordhaya qalaasaha oo markii hore ka dhashay qoysas Falastiiniyiin ah oo laga saaray xaafad ay degnaayeen oo diris la ah masaajidka Al-Aqsa. Al-Aqsa waa magaca qaybta sare ee qalinka ah wuxuuna masaajidka ku yaalaa dhul ka kooban 35 hektar. Muslimiinta waxay u yaqaanaan masjidka Al-Haram Al-Sharif halka Yahuudina ay u garanayaan macbad. waxaa sidoo kale hay'adda dhaqanka ee qaramada midoobay u aqoonsatay goob dhaqan iyo hiddo leh oo muhiim u ah. goobta oo masjidka ku yaala ee magaalada Qudus waa meesha ugu muranka dheer caalamka tan iyo sanadii 1967 xilligaas oo Israa'iil ay qabsatay bariga Qudus oo ka mid tahay qaybta qadiimiga ah ee magaalada. balse khilaafka ka taagan goobtan barakeysan ayaa muddo dheer ah soo jiray xitaa ka hor inta aan la aasaasin Israa'iil. sanadii 1947 qaramada midoobay ayaa soo saartay qaraar lagu kala goynayay Falastiin oo markaasi hoos imaanaysay gumeystihii Ingiriiska. qorshahaas ayaa soo jeediyay in Falastiin laba dal laga dhigo oo kala ah Israa'iil iyo Falastiin. Israa'iil ayaa la siiyay 55% dhulka Falastiin halka 45% kale ah ee hartay la siiyay dadka Falastiiniyiinta ah. magaalada Qudus oo ah goobta uu ku yaalo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxaa gacanta ku haysa beesha caalamka waxaana maamuleysay qaramada midoobay waxaana miiqaamkaas loo siiyay muhiimadda diimeed ee leedahay magaalada. dagaalkii carabtii Israa'iil ayaa qarxay sanadii 1948 kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqeen in ay dal yihiin isla markaana ay qabsadeen 78% dhulkaasi. intii hartane oo kale ah daanta galbeed bariga Qudus iyo Gaza waxay hoos imaanayeen Masar iyo Urdun. Israa'iil ayaa xoojisay boobka dhulkaasi sanadii 1967 kadib dagaalkii labaad ee carabta iyo Israa'iil markaas oo ay isku fidisay bariga Qudus iyo waliba la wareegida magaalada Qudus guud ahaan. muddo sanado ah Israa'iil waxay qaadaysay tilaabooyin ay gacanta ugu dhigayso qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus. sanadkii 1980 Israa'iil waxay ansixisay sharci lagu qeexay in magaalada Qudus ay tahay mid gabi ahaanteedaba mideysan ayna tahay caasimadda Israa'iil taasoo ah mid jebinaysay shuruucda caalamiga ah. ilaa maanta ma jiro dal Israa'iil u aqoonsan in ay Qudus leedahay marka laga reebo Mareykanka oo Donald Trump uu u raray safaaradda dalkiisa markii uu madaxweyne ka ahaa dalka Mareykanka. dadka Falastiiniyiinta ee ku nool magaalada Qudus oo tiradooda gaaraysa 400,000 waxa ay leeyihiin xuquuq deganaansho ah isla markaana looma aqoonsana inay muwaadiniin u dhashay dalkaasi ay yihiin. tan iyo sanadkii 1967 Israa'iil waxay waday musaafiriinta dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool magaalada Qudus waxayna ku haysay cadaadis fara badan. Israa'iil sidoo kale waxay Qudus ku dhistay dhismooyin ay qaramada midoobay ku tilmaamtay sharci daro ay ku nool yihiin 200,000 oo Yuhuud ah. dadka muslimiinta ah waxay masaajidkan Al-Aqsa ee magaalada Qudus u yahay goobta saddexaad ee barakeysan. masjidka Al-Aqsa wuxuu ahaa qibladii koowaad ee muslimiinta ka hor inta aan laga dhigin Makka. qaabkan casriyeynta dhismahan oo qarnigii 7aad la sameeyay waxay muslimiintu u rumaysan yihiin in Baytul Maqdis ay ahayd goobtii laga dheelmiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. dadka Yuhuudda ayaa dhankooda aaminsan in dhismahani uu yahay goobtii mar uu ku yaalay macbadkii Yuhuudda balse sharciga Yuhuudda ayaa mamnuucaya in halkaas la galo oo lagu cibaadeysto ayuu u arkaa goob barakeysan oo aan la gali karin. darbiga ku yaala dhanka galbeed ee masaajidka oo ay Yuhuudda u yaqaanaan gidaarka baroorta ayaa la rumaysan yahay in uu yahay darbigii ka haray macbadkii Yuhuudda balse muslimiinta ayaa aaminsan in darbigaas yahay gidaarka Al-Burqa oo ah goobtii uu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku xirtay Al-Buraq markii uu samada aadayay. sanadii
2017 ayay ahayd markii uu madaxweyne Trump sheegay in magaalada Qudus uu aqoonsanayo caasimadda Israa'iil, taasoo dalal badan oo muslimiin ah ka soo horjeesadeen. Sanadii 1967 Urdun iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in hay'ad muslimiinta ka socota ay maamusho gudaha iyo dhismaha masjidka, halka Israa'iil ay maamulayso ammaanka dibadda dhismaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Dadka aan muslimiinta ahayn ayaa loo ogol yahay inay goobta booqdaan saacado gaar ah, balse looma ogola inay halkaasi ku cibaadaystaan. balse ururada u ololeeya macbadyada Yahuudda sida ururka Temple Mount Faithful iyo macadka The Temple Institute waxay cadaadis ku hayeen dowladda Israa'iil in ay dadka Yahuudda u ogolaato in ay galaan gudaha dhismaha iyaga oo doonaya in halkaasi macbad saddexaad laga dhiso. Sanadkii 2000 ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ariel Sharon ayaa galay goobta uu ku yaalo masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa isagoo ay la socdeen 1000 askari oo booliiska Israa'iil ka tirsan. in uu Sharon galay goobtaasi barakeysan waxaa ka dhashay kacdoonkii labaad ee ku dhinteen in ka badan 3,000 oo Falastiiniyiin ah iyo 1,000 Israa'iiliyiin ah. Israa'iil ayaa xanibaado kala duwan ku soo rogtay galadii masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, kaasoo ay ka mid tahay gidaarka kaasoo sanadkii 2000 lagu kala gooyay halkaasi, taas oo Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed ee ka hor istaagaya in ay dhismaha galaan. dadka Falastiiniyiinta ee ka badan 3 milyan ee ku nool daanta galbeed waxaa loo ogolaaday in ay dadka ka weyn 40 sano ay ku tukadaan maalinta Jimcaha ah, halka kuwa kale ay ku adkaato in ay fasax ka helaan maamulka Israa'iil. masaajidkan barakeysan ee Al-Aqsa waa goob yar oo ku taala gudaha Falastiin, balse waa goobta udub dhaxaadka u ah muranka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil. inkastoo ay goobtan muhiimad weyn ugu fadhido muslimiinta, haddana dadka Falastiiniyiinta ee haysta diinta Masiixiga ah waxay ka soo horjeedsadeen qabsashada Israa'iil. magaalada barakeysan ee Qudus ayaa ah goob sidoo kale ay muhiim u arkaan dadka Yahuudda ah.